السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا أن جعل ميل كستو aad joogtaan waxaan idin leeyahay soo dhawaada. Waxaan idin hayaa barnaamij gaaban oo aan ugu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Ka bogasho wacan. Channelka dadku cusub tahay subscribe dheh. Kambalkana furo like iyo share na kama marno. مرحبا يا رمضان haddaba haddaan barnaamijkeennii hore aan usii gudagalno waxaan ku soo qaadan doonaa ilaa dhowr qodob hadduu rabbi raali ka noqdo. Qodobadaas waxay u kala bixi doonaan kuma laga rabaa soonka, kuma waajib ku ah, kumaana waajib ku ahayn. Waxaan rabaa marka qofka muslimka ah ee waajibku uu ku yahay ayaan rabaa inaan halkan ka ilaamiyo iyo qofka aan waajibka ku ahayn soonka. lambarka koowaad ee qofka bini'aadamka ah in uu noqdo laga rabo waa al-islaam. hadduusan muslim ahayn soonkiisa waxba kama jiro, waxaa ka mid ah gaalka iyo wixii shabahaba. qodobkeena labaad ayaa ah albuluuqu, qofku inuu qaangaar yahay. haddii uusan qaangaarnin micnaheedu ma ahan soonka lagama aqbalayo, laakiin ajarkiisii soonkii wuu leeyahay, laakiin waajibku ma ahan. qodobkeena saddexaad ayaa ah alcaqlu, qof ilaahay aqligiisa u dhammaystiray waajib ayay ku tahay soonka, waxaana waajib aysan ku ahayn almajnuunu, qofka jinoolaha ah ayaana soonka waajib ku ahayn. qodobkeenii afraad ayaa ah waxa uu noqon doonaa asixatu, qofka caafimaadka qaba. caafimaadka hadduu qabo qofka bini'aadamka ah meel kasta oo uu joogo waxaa waajib ku ah in uu soomo bisha 30 maalin ah ee bisha barakeysan ee Ramadaan. ama kan mariidka ee jiran waxaa u bannaan in uu dib u qalleeyo maalmihii ka fogtay, ama haddii bisha oo dhan uu xanuunsanaa ama uu jirnaa. qodobkeenii shanaad ayaa noqonaya al-iqaamatu. al-iqaamatu markaan leeyahay qofku waa inuu deganaansho haystaa, wax safar ah inuusan ku jirin, qof meel u socdo inuusan naqanin. ama kan safarka ah waxaa u bannaan inuu dib u qalleeyo markii uu safarkiisa dhammaysto, midaas ayaa u bannaan. qodobka lixaad ahna qodobka barnaamijkeena ugu dambeeya waxa uu taabanayaa gabar kastoo muslimid ah meesha ay ku nooshahay. gabar kastoo muslimid ah labadan xaaladood hadday ka dahaaro qabto soonku waa uu ku waajibayaa. xaaladda koowaad alxaydu, xaydka oo shahriga ah ee bishiiba soo booqanaya haddii ay ka dahaaro qabto waa ay soomaysaa. wannifaasu, nifaaskana ee dhiig dhalmeedka ah ee hooyadu markii ubad ka dhasha ilaa 40 maalin soconaya haddii ay ka dahaaro qabto ayadana waa ay soomaysaa. ama labada haddaysan ka dahaaro qabin waxaa u bannaan in ay dib ka qalleeyaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. barnaamijkeena maanta halkaasuu noogu egyahay barnaamijka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحبا يا رمضان.